kulankani looga hadlayay ammaanka iyo ganacsiga ayaa waxaa ka soo qayb galay Soomaalida ganacsiga yaryar kula tuulooyinka hoostaga magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Mas'uuliyiintii ka socotay qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee magaalada Cape Town isla markaana soo qabanqaabiyay kulankani ayaa sheegay in ganacsatada Soomaaliyeed ee leh ganacsiga soo koraya ay ka taageeri doonaan dhinacyo badan oo ay ka mid tahay dhanka qiimaha iyo waliba dhanka ammaanka taasi oo muhiim u ah ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Today, what came out to me is the importance of trust, mutual respect, not from the owners and managers, but even from the guys driving the forklift, to respect each other as businessmen at the end of the day and make sure that everybody is secure, secure coming in, secure spending your money, secure your stock and secure your assets. Today we've had a very successful meeting, a very fruitful meeting. We've had a meeting with most of the Somali traders. A lot of things has come from this meeting. There's a lot of things that we can, going forward, we know what to do now. We know what is needed, we know what we need to do, and we are definitely going to work towards getting there. And I'm sure we're going to have a very fruitful relationship between us. It's going to be financially viable for each and every one of us. Soomaalidii ka soo qayb gashay kulankaasi ayaa dhankooda ballan qaaday inay iskaashi wanaagsan la yeelan doonaan ganacsatada dalka iyagoona soo dhaweeyay waxyaabihii looga hadlay kulankaasi oo gabi ahaantood ku saabsanaa ammaanka iyo iskaashiga ganacsi ee labada dhinac. maanta shirkan aan halkan ku kulannay oo Goal Cash and Carry iyo Striker Chicken Wholesalers ay halkan noogu qabteen waxa weeye waa shir aad u muhiim ah oo aad noo anfici doono Soomaalida ganacsatada ana loo qabtay qiimeyn badan iyo tixgelin badan ay maartay noo sameeyeen ballan qaadiyo badan oo xagga price dhimida iyo xagga maartay shaqada iyo xagga tixgelinta iyo xagga ammaanka iyo stocka oo dhamaantiis noo dhamaystiro alaabta loo baahan yahay ay noo ballan qaadeen. shirkan qiimaha badan ay soo qabanqaabiyeen Goal iyo Strike aan ka soo qayb galnay anagoo ah ganacsatada Soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah waxaan ka hadlaynaa wadanteena ganacsigeena securitykeena ammaanka ayaa laga hadlayaa. bismillaah runtii kulankan aan ka soo qayb galnay maanta oo ku saabsanaa businesska noo qabatay Goal iyo Strike runtii waxa fursad qaali ah oo lagu farxo dantan ay ku jirto danta Soomaalida oo dhan marka runtii wuxuu ahaa meeting qaali ah kuwa dambe soo socon ku xarajeynaa kuwan ku ka sii fiican aan Xasan Kaafi Maxamed Shire telefishinka caalamiga Home Cable Koonfur Afrika.